halkee buu ku yaal albaabka jahannamo, maxaase sidaas loogu yeedhay? Ka waran haddii uu jiro albaabka cadaabta oo gubanaysay ku dhowaad nus qarni, aan la dhayalsan karin, aan adkaysi lahayn, oo si baan u holcaya xariijimo dab ah. Hagaag, taasi waa magac uun, laakiin godkan ololaya dhab ahaantii wuu gubanayay wuxuuna soo jiitay saynisyahano iyo socdaalayaal badan oo adduunka ah. Iftiiminteeda naxdinta leh, oo la arki karo mayl habeenkii, waxay u muuqataa wax ka baxsan filimka dystopian, weli waa wax aad u dhab ah. Waxay ku bilaabatay shil warshadeed oo hadda waa meel cilmi baaris cilmiyeed iyo calaamad weyn oo khaladka aadanaha ah iyo dabeecadda aan la saadaalin karin. Albaabka jahannamo waa wax ka badan yaababka juqraafiyeed, sidoo kale waa xasuusin khataraha ku hoos duugan meeraha meeraheena iyo sida ugu dhaqsaha badan ee arrimuhu u wareegi karaan si ka baxsan xakamaynta. Waa kuwan sida albaabada jahannamo ay ku yimaadeen iyo sababta ay weli u gubanayso in ka badan 5 sano kadib. Albaabka jahannamo waxaa loo furay si kama ah. Sanadkii 1971, injineerada Soofiyeedka ayaa gaaska dabiiciga ah ka qodayay saxaraha Turkmenistan markii ay musiibadani dhacday. Qalabkoodu wuxuu dalooliyey kayd gaas oo dhulka hoostiisa ah, taasoo keentay in dhulku u dumo god qoto dheer oo qiyaastii 2-3 fiit ballac ah iyo 1 cagood qoto dheer. Gaaska metane ayaa isla markiiba bilaabay inuu hawada soo galo. Saynis yahanadu waxa ay markiiba walaac ka muujiyeen masiibo deegaan oo iman karta iyo hagardaamada ay ku keeni karto adduunka. Sidaa awgeed waxa ay qaateen go'aan xag jir ah oo ay ku shideen dabka si ay u gubaan qiiqa sunta ah. Hagaajin la filayo oo aan weligii dhammaan. Dabka ayaa la rabay inuu socdo dhowr maalmood ama toddobaadyo ugu badnaan sida khubarada cilmiga dhulka ee Soofiyeedka ay rumaysnaayeen in gaasku si degdeg ah u gubi doono. Laakiin godka, oo hadda loo yaqaan darfa sacratar gaaska, ayaa sii waday inuu gubasho aan joogsi lahayn in ka badan 5 sano. Waxaa ku shiday bakhaaro metane oo dhulka hoostiisa ku yaal, dabku wuxuu helay shidaal aan dhammaad lahayn. Maanta, hurguftii weli waa nooshahay oo waa gubanaysaa, taasna waa ka gudubtay dhammaan saadaasha iyo faragelinta aadanaha. Muxuu dabku u sii hurayaa? Godka darfasa wuxuu ku fadhiyaa dusha sare ee Amudarya Basin, mid ka mid ah gaaska dabiiciga ah ee ugu qanisan bartamaha Aasiya. Metane ayaa si dabiici ah u dhex mara qolofta dhulka halkan, taasoo ka dhigaysa gobolka mid aad u guban kara. Mark Ireland, khabiir ku takhasusay cilmiga dhulka oo ka socda jaamacadda New Astle, ayaa National Geographic u sheegay in jiritaanka godku aanu ahayn wax la yaab leh marka la eego juquraafiga. Sahayda joogtada ah ee metane ayaa ka dhigaysa mid aan suurtogal ahayn in ololku dhinto, taasoo ka dhigaysa godka mid muddo dheer jira. Khaladaadkii injineernimada oo isu beddelay magnet dalxiis. Inkasta oo ay asal ahaan khatar yihiin, albaabka jahannamo waxay noqdeen mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee Turkmenistan, oo soo jiidanaya 1 oo booqasho sanadkii. Godka dhalaalaya waxaa laga arki karaa meel fog, gaar ahaan habeenkii marka uu soo bandhigo iftiin cabsi leh oo ka muuqda saxaraha. Goobaha socdaalka sida Atlas Obscura ayaa gacan ka geystay faafinta caanimadeeda. 2019, goobta ayaa mar kale noqotay fayraska markii madaxweynaha waddanku uu sii daayay muuqaal isaga oo donuts ku samaynaya baabuur isu soo bax ah oo ku wareegsan godka. Inkastoo la isku dayay in la xiro, maxay weli u furan tahay? Sanadihii la soo dhaafay, hoggaanka Turkmenistan wuxuu ka hadlay xiritaanka godka sababo la xiriira deegaanka iyo dhaqaalaha. Dab ahaantii, madaxweyne Gurbanguly Berdimuhamedow ayaa mar si cad u sheegay in la doonayo in la damiyo dabka. Hase yeeshee, saadka lagu xirayo dabkan baaxadda leh ee gaaska lagu shubo ayaa noqday wax aan macquul ahayn oo aad u adag. Godku weli wuu furan yahay oo gubanaya, sidoo kale waa soo jiidasho xoog leh oo soo jiidasho leh kuwa lagu sawiray dhacdooyinka dabiiciga ah ee ugu yaabka badan uguna quruxda badan.